الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعنا وناكسن داوديال كسو دوادا برنامجka haweenka iyo arrimaha qoyska ee telefishinka qaranka Soomaaliya oo toddobaadkan idinkaga imaanayo stuudiyaha magaalada Muqdisho. barnaamijkeena waxaan ku faaqidi doonaa waxa dhawaan magaalada Muqdisho looga dhawaaqay laba urur oo ay ku mideysan yihiin gabdhaha suxufiyiinta ah ee gudaha dalka iyo dibadda ku nool. ururadaasi iyo waliba qaybta ay ka qaadan karaan horumarinta gabdhaha suxufiyiinta ama doorka ay ku leeyihiin horumarinta gabdhaha suxufiyiinta ah. waxaana marti ku ah barnaamijka Nimca Xasan Cabdi oo gudoomiye ka ah mid kamid ah ururadaasi iyo Ifraax Cumar Warsame oo iyaduna xubin ka ah mid kamid ah ururadaasi. in labadiinaba ku soo dhawaada marka hore waxaan idinkaga mahadcelinayaa sida aad inooga aqbasheen codsigeena iyo waliba barnaamijka aad nagala qayb qaadateen. waxaan ku hormarayaa Nimca Xasan Cabdi oo gudoomiye ka ah labada urur haween ee looga dhawaaqay magaalada Muqdisho ku mideysan gabdhaha suxufiyiinta ah mid kamid ah. Nimca su'aasha ugu horeysa hadii aan ku weydiiyo marka hore waxaad daawadayaasha anaga basharaxaad inaga siisaa ururka haweenka suxufiyiinta ay ku mideysan yihiin magaciisa iyo ujeedooyinka loo aasaasay. سعدي أدب أدو مهسن أوركا ورباهين تدمر كصوماليات Somali Female Media Organization SOFM وحال أساسي لبضو كن يلبي طبنكي ولو أن وصلنا هين مد حلقة الشعب أحسن قبل السعوديين أو حلقة كسرنا مجرد نيروبي دلك كينيا أي فكر أهان اسكو كيني إن سمستو أي كوميديسيين قبلها السعوديين الصوماليات ما دام حلقة أن جوجنا قربها أما دلك كينيا ودرس لا دلك أنا الصومالية أن حلقة سكدب أن ولو أن كمل هن نورياش كبرك عاصمة دلك مقدشو أو هالكاس تجي بس المرهان تانا أي عن دون إن سمسن أول أن كوميديا سنة هاي أن إسبدلنا مركز يعني كدب أيام دلك دب وقصة لابتي وحن دور بدني مركز ما دام مجالات مقشان قصة لابتي أن سنة بدن كدب إن أن أوركي حفيز كيس مجالات أم مقدشان كفرنا ضد أن أوجسين أوركاس يا أورجرو أن حفلة أيام دوان مجالات مقدشو قبناي أن تا أو أي كسوق يبقى مسؤولين كتير دولة الصومالية أن وحول بقى بلادن وحليهين أن قف كودي رجلية لكن هدي أدمان تسمى سؤور أو وحدي رجلين آذن هي سنة حرقة سوا مقدباتا أن وحا ما حد أن علين جار أوجدي لها أن أفيان كمدحتوي لإنجنير عبد الرحمن عمر عثمان يريسو حلي قبليه سعفيين تاني رب كسرنا أن ضدك أن أولتنا هاي أوجدك أما هدي أن سامر مكلاس أساي أن إنجنير هدا صار سمعنا محا نلقبون أما تلبحين وكم ده هاي أن سيدا كان وحن مهد علم جار وجدنا يا أو سيدا هجر لعناد أورو كان أن ولا شقي أن وزير كين وفافينتا أن عبد الله علموجة حرسي أو ضد كين وجود يرجلي أحا أو يريبل وذا أن وإن قبلها لسوق هنا وإن قبلها أي مذوبان أن سيدا كلا وادوقتها مقالة مقدشو حاكد السن أورو صحفيين كلا أو قبلوا الصوماليات أن كم مذوبين أو أنت بدن أن قبلوا أن صوب الشقياني waxaan ku faraxsanahay maanta in walaashay la fariiso urur ka socoto Ifraax oo xubinka ha marka hadda labadeena bis anaga waxaan ka jeclaanahay afar kale anagu ah inaan meeshan soo fariisano. waa mahadsan tahay Nimca aan kugu soo noqon doonaa. Ifraax ayaan su'aal taala mid weydiinayaa Ifraax ururka aad xubinta ka tahay bal waxaad sharaxaad inaga siisaa ujeedada loo aasaasay iyo magaciisa. سعدي وما صنتها برنامجكن هوانك يا رمها قيسك تلفزيون كقرن كوان كلنا هاي أدنى ونبغى قاعدين يا طبعا إن برنامج كمان عن كسوق يبقلنا ونكفر حسنا هاي برشة يا دمان حبناها أورك كنا وسلام يا أبايد كلا أورك كلا يدا كسوعتنا وسلام يا ونكسر دوين يا برنامجك إن أورك الناس إذا ما جي سبك مقطع حالي ردا SWJ Somali Women Journalists وأورك قبلها صحفيين في الصوماليات إن waxaad ogtahay in badan saxafiyiinta gabdhaha waxa ay qayb ka yihiin xuduudda aanan la xaqiri karin ee saxafiyiinta Soomaaliyeed dhibaatooyinka iyo inta badan la soo jaanqaaday xilliyada aad ka warqabtay in ururkaasi dabcan baahiyo badan ayaa loo aasaasay waxaan aragnay in gabdhihii Soomaaliyeed aysan lahayn doorkii saxaafadda ay ku lahaayeen waxaan aragnay in baahidoodii inta badan ay rabeen ay xaqiran tahay oo aysan banaanka soo baxsaneen aniga iyo in kale aan u mahad celinay in ay mudneed inaan ku fakarno xilligaas oo ahayd sanadkii hadda tagay xusuus gaar ah nagu leh aad baan ugu faraxsanahay habeen qor ayaan ku wada fakarnay in ururkaasi aan sameeyno sameynta magaciisana maaha mid uun la isaga dhawaaqa ama lagu hadaaqay waxaa jirtay
la tashiyo badan oo mas'uuliyiin badan oo dawladda xubno ka ah hay-ado badan dad badan oo adigu mudarisiin iyo qabiiriin ayaan kala tashanay waxaa la yiri mar haddii waxaad sameynayso dadka kaaga aqoonta badan aan la taashada aad iyo aad runtii magacaas steps badan ayuu soo maray ama waa marxalado kala duwan ujeedkiisuna marka hore wuxuu ahaa in gabdhaha suxufiyiinta maqaam sare lagu gaarsiiyo oo halka wiilashu maanta ay saxaafadda ka joogaan meel ka sareysa lagu gaarsiiyo alxamdulillah ilaahay waxaan ugu mahad celinaynaa in aan gaarnay marxaladii aan ugu dhawaaqaynay sanadkii hore dhamaadkiisii xafladii furitaankiisa waan filayaa qaybo badan iyo asxaab radio muqdisho ka tirsan inay nagu soo booqdeen oo wararka halkaas ka soo teginayeen xafladaasi lagama sheekayn karo aad bay u ahayd mid lagu farxo waxaa kasoo qayb galay dad badan oo ay kamid ahaayeen haweenka qaranka Soomaaliyeed oo aan aad u bogaadinayo maama Batuula Gabaye aad baan ugu mahad celinaa xubin muhiim ah noo tahay aad bay dadka noo dhiirigelinayo ugu jirtay mas'uuliyiin ka tirsan gobolka Banaadir Maxamed Yuusuf oo afayeenka gobolka uu kamid yahay isagana aad baan ugu mahad celinaa sidoo kale wasaaraddeena warfaafinta inaan ilaawin karin iyadana waan uga mahad celinaa sida wacan ay soo dhaweynta iyo bogaadinta ku dheehanta ay noo siisay aqoonsigii xataa ururka uu ku shaqayn lahaa ee cadeynayay inay hablo Soomaaliyeed oo warfidiyanada qaybooda kala duwan ka shaqeeyo oo saldhig leh ay noqdaan wayna siisay waan uga mahad celinaa waxaan kale u mahad celinayaa iyadana oo aan la xaqiri karin wasaaradda horumarinta adeega bulshada agaasinkeeda haweenka oo inoogu deeqday xafiiskeena aadka u quruxda badan maanta haddii aad soo booqato aad la dhacayso ha ka bixin bay ku qabanayso waa tahay aad baan ugu mahad celinayaa intaas oo dhan sidoo kale ururkan waxaa ku midaysan hadeertaan la joogo 75 gabdhood ururka kama koobno uun kaliya gabdhaha dalka ku sugan gabdho Soomaaliyeed oo suxufiyiin oo qurbaha jooga ayaa kamid ah waxaan aad u bogaadinayaa Aamino Muuse oo ah gabadh inoo qaabilsan qaybta international relation and human rights ka xiriirka caalamiga iyo arrimaha bini'aadanimada aad ugu bogaadinayaa in la helana waa ay way mudnaan waayo mar haddii aad tilaabo qaadayso waxaad u baahan tahay la tashiyo badan iyo dad aqoon leh oo expert ah aad baan horta intaas oo dhan ugu mahad celinayaa ururka lama soo koobi karo wax qabadkiisa iyo waxyaabaha uu ku soo baxay waxyaabo badan oo aan sii naawilaynin waa ay jiraan barnaamijyo badan oo aan sameynana waa ay jiraan balse waan isugu soo laabanay aad baa mahadsantahay Ifraax waan kugu soo noqonayaa nimcan u noqonayaa nimco waxaad bal sharaxaad naga bixisaa maadaama ururkii lagu dhawaaqay ujeedooyinka uu xambaarsan yahay ama qorshihiina fog iyo kan dhowba ee aad ka damacsantihiin horumarinta gabdhaha suxufiyiinta Soomaaliyeed oo aan inta badan ognahay in had iyo jeer ay wiilasha ka sareeyaan markii loo eego dhinac walba haddii ahaan leed shaqada iyo horumarinta kale ee saxaafadda muxuu yahay maxay tahay ujeedadiina aad ka damacsantihiin horumarinta gabdhaha suxufiyiinta ah sacdiyo adigu aad u maasan ujeedku wuxuu yahay in ay gabdhaha Soomaaliyeed ee suxufiyiinta sanado badan ama 10 sano ka hor meesha ay joogaan ilaa iminka ay joogaan markaad ka doonanayso idaacadaha ama agaasiga oo kale in aad member ka noqoto xarumaha warbaahinta dhibaato ayaad kala kulmaysaa waxaa jiro inta badan dumarka Soomaaliyeed oo warbaahinta ka shaqeeyo lama siiyo fursado oo inta badan waxa loo dhibaa oo kaliya in idahayada tacsiidaha baafinta iyo waxyaabaha la mid ah ma arkayso kaliya in gabar la yiraahdo barnaamij soo saarto oo ay tabiso oo iyada tafatirato ma arkaysid markay aqrinayaan wararka oo kale waxaad arkaysaa warka maanta waxay noo soo saaray hebel waxaan aqrinayaa Sacdiyo kale weena awoodaa inay soo saarato tafatirto oo idaacadda ka jeediso laakiin wax qiraada ee warbaahinta raggu ay ku hayaan suxufiyiinta ujeedkeena dhawan wuxuu yahay in aan barnaamijyo wacyigelin sidaas oo kale aan qabano barnaamijkan ugu horeen uu noqdo agaasimayaasha idaacadaha magaalada Muqdisho in aan barnaamij u qabano oo aan leenahay gabdhaha xarumihiina ka shaqeeyo in ay il gaar ah ay ku eegaan sidoo kale gabdhaha joogo kale dalka Soomaaliya qaarkood qaarkood ujeedkana wuxuu yahay in dhawaan magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubbada Hoose aan barnaamijyadaas oo kale aan ka qabano iminkana process ku jiro oo maadaama meel walba oo maamul oo ka jiro la doonayo in processkii maamulka iyo waxyaabaha u degsan aad marto dhawaana sidoo kale deegaano walba oo nabdoon oo kooxo ama
wax walbo nabadda kasoo horjeeda aan joogay inaan barnaamijyo ka qabano sidoo kale wacyigelin ee gabdhaha ay sameeyaan in sidoo kale ay sameeyaan barnaamijyo gaar ah oo idaacad walba ay ka baxdo barnaamijyo haween ah oo looga hadlayo tacdiida dumarka Soomaaliyeed loo geysto horumarka gabdhaha warbaahinta ay gaareen in aan noqono ururada ka jira iminka magaalada Muqdisho ah haatan urur laba ah in aan wada shaqeyn aan yeelano oo aan noqonin ururada kale oo ragga oo inta badan iskhilaafo in aan marka maanta oo kale Farxi Qayrto ah gudoomiyaha haweenka markay qabanayso kale in aan saacidno kale oo aan ka mid noqon barnaamijkeeda oo aan garab siino marka anaga kala qabanayno oo aan meesha laga dareemin in gabdhuhu ay yihiin dad iska soo horjeedo waan ku faraxsanahay xitaa inay bataan ururada oo u doodo ama gabdhaha warbaahinta Soomaaliyeed wada shaqeyn buuxo aan wada yeelano inta badan maadaama dad walaalo ah leeyahay sidoo kale aan hal midna ka dhaxayso caqabadaha ugu badan ay tahay dumarka Soomaaliyeed ay soo gaarayso marka wada shaqeynta waa muhiim nimcaan kugu soo laabanaya Ifraax ayaan su'aal taa la mid ah weydiinaya ururkiina muxuu yahay ujeedada dhow iyo waliba tan fog ee uu ka damacsan yahay horumarinta gabdhaha suxufiyiinta Soomaaliyeed سعدي واد مهدسنتahay marka association horta la magacaabayo ama aad rabto inaad ajenda u dejisato waxa jira waxyaabo la yiraahdo objectives iyo vision iyo mission oo aad adiga higsanayso iyo waxyaabo kale oo goals la yiraahdo waana waxa kaliya ee cudud u ahaan kara ee ururkaada aasaaskiisa ama jiritaankiisa saldhig u yeeli kara inaga marka aan ka hadalno rajadeena dhow horta waxay u muuqataa mid hirgashay rajadayna dhow hadda waxay u muuqataa mid hirgashay aadna waan ugu faraxsanahay inay hirgashay waayo waxaad arkaysaa tusaalan kugu soo qaadanaya rajadayna dhaweed waxyaabaha ay u hirgashay ururka aan ku sheegayo Somali Women Journalists SWJ waxaan ku sheegay in 75 hablood uu ka kooban yahay oo gobolada iyo waliba magaalada caasimadda oo hadda aan joogno ka wada tirsan waxaan ku sheegay dad representative ama wakiilo ayaan leenahay oo gobollo aan ku sheegi doono marka wareysiga bartankiisa aan ku jirno inoo jooga tababaro ayaan sameeynaa tababarada qaar ee xataa idaacadaha loo qabanayo ee aysan hore u dhici jirin in gabdhaha suxufiyiinta ay ka dhex muuqdaan oo doorkoodii la arko oo dadaalkoodii la arko runtii waxaan aaminsanahay gabdhaha waxaan wiilasha ka dhex guuxayna ka dhex guuxay waayo gabar meel fadhiisatay oo akademiga oo expert ya oo aqoon leh ma la malaysan karo runtii hadda waxyaabaha aan ka fakarayno waxay noqon doontaa waxyaabo aad u farax galin doona dhammaan bulshada waxaan sameynay tababarkii ugu horeeyay waxa uu ahaa mid looga hadlayo ethics of journalism waxa loo yaqaano ama anshaxa saxaafadda haddii inta aan fahmayn aan u faahfaahiyo dadku isugu jiraan dad wax fahmaayo dad fasir wax ku fahmaayo waana in loo dhaxeeyaa sida dabcan anshaxa saxaafadda xataa ka mid ah waxaa jiray barnaamij kale oo la yiraahdo isagana maternal mortality oo looga hadlayay hooyada iyo dhalaanka dhibaatooyinka marka hooyada xaamilada ay tahay soo food saaro waxaa la arkaa hooyo xaamila oo ubadkii ay isku go'do waxyaabo badan dabcan waxa inta badan ka qayb qaadan karana waa warbaahinta waan ka qayb galinay ilaa iyo 20 gabdhood 20 kale oo waxaa jiray iyaduna aan kaga qayb galinay barnaamij la dhahayay doorka bulshada iyo waliba warbaahinta aad ay uga qayb qaateen ururka 20 gabdhood oo kamid ah ayaan geynay sidoo kale waxa kamid ahaa isna 12 gabdhood oo min 6 aan uga qayb galinay barnaamij la yiraahdo basic of journalism saxaafadda hadii basically aad ka dhisneen high level inay gaarto kugu adkaanaysa waayo waxa loo baahan yahay qofka marka uu dhalanayo waxa uu soo maraa marxalado kala duwan dabaqado kala duwan waa uu dhashaa canuga naaska lagu habaa waa uu soo karaa ooyintu soo bartaa nuuxsigu bartaa hadba si difference ways soo maraa marka waxaan ugu talagalnay qaybahaas kala duwan in aan uga qayb galino gabdhahaas ururka ka tirsan in waxyaabo aysan hore u soo arkin ay arkaan aqoontoodina ay sare u qaado dabcan barnaamijyo kalena waa ay jiraan oo skills development la yiraahdo xirfadahooda lagu horumarinayo si loo helo gabar heer agaasimo gaarto oo u talin karto gabdho iyo wiilal wariyaal ha ahaato idaacad ha ahaato TV ha ahaato journal anything oo saxaafadda kamid u talin karto waxaa la barayaa qaabkii skills oo organization-ka aha qaabka iyadu wax u maamuli karto qaabka haddii ay maamul noqoto ay ula dhaqmi karto shaqaalaheeda
qaabka shaqaalaheeda fiican iyo shaqaalaheeda xun maaha inay kala saarto laakiin iyadoo u fiirinayso habsami socodka shaqadeeda iyo horumarkeeda ay ula dhaqmi karto muhiimada taa ka dambeysana waa dareemi kartaa shaqo wanaagsan in la helo gabdho adag xirfadyahan ah meel iska soo saari karo waxyaabaha kale waxaa ka mid ah haddii aan kuusii raaciyo fursadda inagoo aada uga faa'iidaysanayno nimcana dabcan aad baan ugu mahadcelinaya waana bogaadinayaa ururkooda iyo hablaha ku midaysanna aada usoo dhaweynayna gabdhaha way kala tafaraaruqaana la dhihi jiray balse waxaan rajaynaynaa sanadaha soo aada in gabdho midaysan la helo oo sida rajadeena dhowa insha allah hadduu ee baraali ka noqdo hana nagu garabsiiyo waxyaabaha kale ee aan rabno wax ay tahay in sanadaha dhow la helo gabar aan wax baran waxaa jirta hadda gabar wariyaa oo secondary level aan ahayn oo primary ma heli karta hadhowta xirfad ay qofkii agaasimaheeda ahaa ama tafaftiraheeda ahaa ama madax warar ahaa xataa ninka yar albaabka ilaaliyo khibrada isaga celisa hadhow ma heli karto laakiin marka high level ay noqoto oo secondary level ay ka gudato oo jaamiciyad ay noqoto oo bachelor ay noqoto oo magister ay noqoto oo ay noqoto digriyada ugu sarreeya sida PhD oo doctoria ay gaarto waxaad dareemi kartaa inay soo baxayaan jiil cusub oo laga cabsado dadka aqoon-yahanada markay soo istaagaan waa arkaysaa laguma degdegi karo in gabdha aan lagu degdegi karin ay soo baxaan rajaynayna waan wada rajaynaynaa ifraax waan kugu soo noqonayaa nimco qorshihiina fog iyo kan dhowba maxaa hadda la taaban karaa oo idinkaga hirgalay ama aad ku rajo weyn tahay in mar dhow ay ku hirgalaan ururkaad adigu guddoomiyaha ka tahay sacdi adigu aada u mahadsan rajadeenu waa laa taqnadu min raxmatillah marka rajadu waa rajo fiican maxaa laga taaban karaa hadda qorshihiina marka qorsheenu wuxuu yahay maadaama aan dalka joogno oo processkan uu wadan dariskana oo nagala yimid oo halkaas aan kusoo qabanay meel aan marti ka ahayn aan joogno maanta markii aan durbo imaanay wax walbo inta aan ku dhawaaqista aan sameynin kahor waxaan sameynay in aan sharciga dalka u yaal aan marno wasaaradda warfaafinta oo dowladda Soomaaliya sidoo kale aan aqoonsi ka helno wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga qaranka oo aan ruqsadda ka helsano in aan dalkan ku shaqeyn karno aan ka howlgeli karno iyo gobolada dalka aad iyo aad wuxuu yahay in aan barno gabdhaha suxufiyiinta ah nabadda iyo inay ka shaqeeyaan barnaamijyada wacyigelinta ah maadaama inta badan aan soo saarno bulsho caafimaad qabto laakiin maalin walba haddaan dhahno ama dagaalaa meeshaas ka dhacay aan iska wacan oday gurigiisa jiifo oo yidhaahna haya adeer ka waran dagaalkaas oo waxba ka ogeyn adag ku abuurto waa dhibaato laakiin gabadha saxafiyadda ah oo ka shaqeysa dalka Soomaaliya oo aan ognahay marxaladda imika ku shaqeyso dhibaatooyinkii ku shaqeeyaan og inay ka baxaan in xuquuqdooda taamka ay helaan laakiin haddii aad maanta aad noqoto qof high level aad taagan tahay haddii aadan saacidaad ka helin xarunta aad ka shaqeyso wax aad tahay ma jirto in aad la tartamo aad la sameyso ninka ragga ah barnaamijyo aad qabato wacyigelin ah aad ka dheeraato wax saro dalka u keenaya ama qaranka wax u dhibaya in aad ogaato horta sheyga markaad soo qaada ama qofka war sameynayso waa inaad tiraahdaa warkan waad hayso sooma interview aa qaaday markaa qaado warkan maanta ka baxay idaacadda muxuu u dhimi karayaa bulshada Soomaaliyeed muxuu u dhimi karayaa qaranka Soomaaliyeed in la baro peace ama nabadda iyo xasiloonida dalka in sidoo kale baro in ay dalka yihiin muwaadiniin Soomaaliyeed oo dal kale aysan ahayn dad ajnabi ah barnaamijyo aynkaas oo kale la qabto barnaamijyo sidoo kale gudniinka fircooniga wacyigelin walow iminka sida hore uu yahay guurku laisku qasbida oo reerka ay ku qasbayaan gabadho in ay ninka weyn ama nin ay rabeen in dhaqaale la siiyo lagu dirayo kale in bulshada laga wacyigeliyo in sidoo kale bulshada laga wacyigeliyo gabadha saxafiyadda hawsha hees inay tahay hawl bulsho ah dad ayaa ka aaminsan qofka markay saxafiyad tahay ama aadan gabar ay sii tahay si qaldan ay ka aaminsan bal bulshada la dhaxgalo yiraahdo gabadhan waa saxafiyad sidaan waa oo hawsha xataa la baro in aan cilaaqaad la yeelano xarumaha dawladda meel walbo sida amniga oo aan qayb ka qaadano dhawaan afayeenka booliska Soomaaliya sida aan dhawaan wada kulnay waxaan u sheegnay in aan ka urur ahaan
aan si mutadawacnimo xataa aan ula shaqeynayno hay-adaha amniga sidaa markaan leenahay amniga maanan anaga qoryo qaadanayno waxay tahay in dalka barnaamijyada horumarineed aan sameyno anagoo kaashanayno laamaheena amniga ee dalka Soomaaliya. waayahay nimco qorshahaas aad soo sheegtay maxaa idinkaga qabsoomay tan iyo markii ururkiina lagu dhawaaqay? waxyaabo fara badan ayaa qabsoomay anagoo shirar aan ka qayb galnay shirkii African Development Bank gabadhii ka socotay oo aan kaga qayb galnay xarunta xalana ee Amsom ay ku sugan tahay sidoo kale ma ahan dalkeena maadaama ay joogaan ciidamo dalka u soo gudmada ama dagaal kula jiro kooxo dawladda ka soo horjeedo iyo nabadda ka soo horjeedo in aan xaqooda xataa aan cilaaqaad la yeelanay waxyaabo fara badan ayaa noo hirgalay balse taa oo ay tahay oo waxyaabo fara badan hirgalay faanoo la fara kama qodno wax badan baa idin siyaarsan aad baa mahadsantaa Ifraax adiguna dhowr qorshaad soo sheegtay in uu ku aasaasan yahay ururkiina ama ujeedooyinka muhiimka u ah oo qorshihiisa ugu dhow uu yahay aad ku talaabsan doontaan tan iyo markii ururkiina lagu dhawaaqay ama ururkaad xubinta ka tahay ee gabdhaha suxufiyiinta ah ku midaysan yihiin lagu dhawaaqay maxaa idin qabsoomay oo qorshahaasi laga taaban karaa oo aad isleedihiin waa ku guulaysateen ama uu idin hirgalay? sacdii waad mahadsan tahay goor sii horeysay maraan hadlayo waxaad moodaa in arrimahaasi wax weeg aan ka hadlay qorshayaashiinii iyo waxyaabihii soo hirgal waxaa ka mid ah in tababaro la dhihi karo waa horumar la taabtay oo 20 sano lasoo dhaafay aanan la gaarin horena aan loogu fakari jirin in la gaarayo aan hadda gaarnay ku sheegay gabdho 50 gaarayo kana sii badan ayaan tababaro u sameynay kana qayb gelinay tababaro kale waayo waxa la yiri waxa aad rabto hadaadan doondoonin kuma imaadaan sax wax badan oo waxa jiro gabdhuhu ay rabaan balse aysan aqoonin wadiiqadii iyo weygii ay u mari lahaayeen sidii ay ku hanan lahaayeen inaga waxyaabaha ugu badan ee hadda aan fox ka saareyno ama diiradda hadba sida loo yaqaano waxa ay tahay in aan helno dad leh aragti dheer oo ka fog midda xafiisyada lagu haahayo iyo midda ah in urur la magacaabnay la iska joogo haddii urur la magacaabay gabdho la isu keenay ma ahan wax macno badan sameynayo laakiin waa inaad gabdhaha isu keentay ka dhistaa dhanka aqoonta waa inaad ka dhistaa dhanka xirfadaha iyo dhan walba waa in ay helaan tababaro waa in ay helaan writerskii ay ku lahaayeen meelaha ay ka shaqeynayaan ha ahaado radio ha ahaado TV website ahaato waxyaabaha writerska oo journalada ay ka mid yihiin iyo website-yada anyway meel walba ay ka shaqeyso gabadhaas inay hesho full right waxa la yiraahdo macnaha xuquuq buuxdo oo iyadu ay lahayd in ay hesho balse mar hore xaqirneed in la soo saaro waliba qaab maquunisa oo policy ahaan loo maray qaab siyaasadeed macnaha waxa jiro marka aad rabtid siyaasadda waan baranaa waxa jiro marka aad rabtid in aad sameyso waxyaabo dad policy makers la jiro oo siyaasadda naftirkeeda sameeyo iyo hababka waxyaabaha aad u sameyn lahayd in gabdhahaasi loo sameeyo hababka ay ku gaari lahaayeen horumarada aqoontooda ay ku kobci lahayd waxyaabahaas oo dhan waan soo sameynay alxamdulillah hadda waxaan rajeynaynaa in tababaro kale aan furno oo processkoodii hadda ay socdaan waxyaabo on process la yiraahdo waxaa jiro waxyaabo processka ka baxay oo qabsoomay runtii waxaan aad ugu mahad celinayaa horta oo aan iloobay haday markaygii horeba ururada bulshada rayidka aad ayay gacan ka geysteen horumarka ururkeena uu ku tilaabsaday waxaan aad ugu mahad celinayaa hay'adda ama NGO-ga la yiraahdo Elman ee ka shaqeeya nabadda iyo xuquuqul aadanaha waxay naga caawisay sidii gabdhaha si suxufiyiinta aan isu keenay arrimaha xuquuqul aadanaha iyo nabadda ay uga shaqeyn lahaayeen qofka marka uu wariyahay ma loo baahna dalka waxa laga yaabaa in wax ishaayo ama iska soo horjeeda ama difference policies ay ka jiraan ma loo baahna inay saameyn ku yeeshaan waxa la rabaa inay noqdaan qof miidala oo dhex taagan oo intana aan jirin inta aanu jirin sharciga saxaafadana waxa kamid ah lama baahna in meel u janjeerto waxyaabahaas ayaan aad ugu mahad celinaynaa hay'adda Elman sidoo kale iyada hay'adaha dalka kamidana waanu mahad celinaynaa waayahay Ifraax waan kugu soo noqon doonaa nimcan dib ugu noqonaya nimco qorshayaal badan ayaad sheegtay in ururkiina uu hiigsanayo iyo waliba ujeedooyin fog oo lagu horumarinayo gabdhaha suxufiyiinta ah
qof kaligiis waxba ma qaban kara ama urur kaligiis gabdho ay ku midaysan yihiin waxay u baahan yihiin caawinaad dhinac walba leh yaa ku garab taagan hawshaas markii laga soo tagay gabdhaha ku midaysan ururka yaa garab haday ahaan lahayd dhinacii dhaqaalaha haday ahaan lahayd dhinacii horumarinta gabdhaha suxufiyiinta ah yaa kula garab taagan marka adigu aad u maadsan Sacdiyo waa runta wax walba la bilaabo wax u baahan yahay dhaqaalo marka geed la talaalayana waa in wax walba aad adiga biyo ku shubtaa marka adiga soo saarto dhaqaale aad isku bixisid ayaa dhaqaale iyo waxyaabo fara badan aad helay gabdhaha ku jiro qodooda ururkan ayaa fangareeyay ama in uu istaago ama in sharciyada meelaha looga baahan yahay oo kale dawladda Soomaaliya ama ruqsadii wasaaradda laga rabay wasaaradda arrimaha gudaha oo amniga dalka qaabilsaneed waxa bixi waa gabdhaha oo ku jiro suxufiyiinta ururkan marka adiga meel soo saartid oo aad noqoto qof isbixi karto ayaa lagu saacidi karayaa laakiin haddii aad urur maanta asaasto aad tiraahid beesha caalamka iyo ururada bulshada rayidka iyo yaa qoom iyo aad sheekada sadaablaad waa dhibaato laakiin aan soo saarna anaga aan noqono dad xoolahooda ku bixinaya in ay horumar ku gaaraan marka ayaa horumar gaari kartaa hay-ado ma jiraan oo ka shaqeeya dhinaca waxaa jira hay-ado badan oo ka shaqeeya horumarinta gabdhaha ururada bulshada jirto ma jiraan dad idin soo bandhigay inay idin caawinayaan oo idinla garab taagiin hawshan fiican ee aad haysaan way jiraan sidoo kale hay-ado ka dhisan magaalada Hargeysa oo kale waxaa sidoo kale jiro AMISOM qaybta oo arrimaha haweenka qaabilsan oo aan wada shaqeyn sidoo kale barnaamijyo badan aan ka filayn oo imikana process ku jiro in ay hirgalaan sidoo kalena cid walba oo women journalism ka hadlaysa ama dhibaatooyinka dumarka ama barnaamijyo horumarineed oo dumarka ku saabsanaa waxaa noo socda process iyo qorshihii waqtigan hay awgis ifraax su'aaltaas lamidaan ku weydiinaya yaa ururkiina caawinaya haddii ay ahaan lahayd dhinacii dhaqaalaha dhinacii horumarinta iyo dhinac walbaba maadaama gabdhaha kaligood aysan hawshaas weyn xambaari karin adigoo inoo soo koobaya maadaama gabagabadii barnaamijka aynu taagannahay Sacdiyo aad baad u mahadsan tahay tusaalaha ugu dhawaan ku sii karaayo waxa uu yahay marka gurigaada geed aad ka abuuranayso adiga ayaa lacag ka soo saaraya haddana guriga ku abuuranaya haddana biyo ku shubaya laakiin waxa kaliya aad raadinayso waa rajada isaga aad ka leedahay iyo miraha uu ku soo saari doono ee aad cunayso wax intaas oo dhan u marayso tusaalahaas waxaan ugu soo qaatay ururka markii hore la dhisaayay gabdhaha ayaa lacagta iska bixiyay marka hore inaad jeebkaada cuntaa kadib marka lagu arkay inaad tahay qof dhiiran oo raba inuu developing sameeyo oo raba inuu mabda'iisa ka rumeeyo oo raba in waxa uu u socdo haddana ay yihiin waxaa jira oo reality ah iyo wax aan reality ah waxa haddii ay u muuqdaan xaqiiq ahaan in ay qofkaasi wax uu ku sameeyo gaari karo soo bandhigay ma jira inay idin la garab taagan yihiin hawshan runtii waa sidaas wasaaradda horumarinta adeega bulshada mar walba waxa inoo sheegtaa inayna garab taagan tahay waanan aragna runtii tilaabooyin ay nagu garab taagan tahay oo waatan kuu sheegay in ayna siisay xafiis ka mid a guriga hooyooyinka oo aad u qurux badan oo u weyn haddana ay ka qayb qaadatay naqshadayntiisii sidaas si lamid ah waxaa jiro marka laga soo tago contributionkii gabdhaha ahaa ee qalabayntii xafiiska iyo soo gelintii internetka iyo marka xafiisa la sameynay aad dhahday kolley ma hor yara waxaa u baahanaysaa internet maadaama aad ka shaqaynaysid warbaahin website aad soo saaraysid qofka xafiiska ku fadhiya ee secretary-ga waxa uu u baahan yahay meel uu kaaga ururiyo xogtii hay-adihii international NGOs waxa la yiraahdo ay ku soo dirayaan bilaa ahaadaan weekly ahaadaan meel lagaaga aruuriyo dabcan waxaas oo dhan contribution keena ayaan ku gaarnay waa mahadsantahay ifraax aad baa mahadsantahay waqtigan hayo waan idinkaga mahad celinayaa mar kale sida aad inooga aqbasheen codsigeena hal su'aal baan rabaa inaan idin dhex dhigo taasoo ah dadka Soomaaliyeed ama qof walba oo idinku caawinayo arrimahan horumarinta gabdhaha suxufiyiinta ah ee aad wadaan marka uu TV-ga idinka fiirsado idinkoo laba urur ah waxba qalbigiisa ku soo dhacayo taasoo ah inta faraaruq idinka dhex jiro ama ay ku fiicnaan lahayd inaad midowdaan si hal urur oo awood iyo quwad leh oo horumarin kara gabdhaha suxufiyiinta aad uga soo baxdaan ma ku fikirteen in la mideeyo labadan urur maxay tahay sababta keentay in laba urur laga kala dhigo ayadoo ujeedadu ay tahay hal meel halkaas meel oo ah horumarinta gabdhaha suxufiyiinta ah nimcan ku horumaraya Sacdiyo horta adiga aad u maasan iminka maadaama aan nahay laba urur color aan ku sheego waxa ka jeclaana in
ururo badan ay yimaadaan laakiin waxaa fiican in hal urur oo ururo quwad badan ay leh jiro dalka oo inta badan saxaafadda u ololaya ama ka hadlo intooda badan rag baa wado oo 5 ama waa 4 in ka badan marka maxaa u diidaya in dumarka Soomaaliyeed ee warbaahinta ku jiro ay yeeshaan ururo fara badan taan waxa u arkaa imika maadaama laba nahay in ay tahay mid horumar ah oo aysan ahayn mid khilaaf ah waxaan nahay dad wada shaqeeyo maalin walba is aragnaa oo waxaan iswadaarsanaa xoogag fara badan marka anu ma arko in ay tahay hoos u dhac laakiin waxaan u arkaa in development ay tahay hay ifrax dhinacaaga sidee kula tahay in laba urur aad kala noqotaan soo kuma wanaagsanaan inaad hal urur oo quwad leh noqotaan maadaama ujeedadu ay tahay hal meel sacdi aad u mahadsan tahay walaashii waxay ka dhawaajisay in aad jeclaaleed ururada inay farabataan sida ragga dhexdooda ka muuqata inaga horta inaan ragga tooda ka fakarna ma laha inaan ka fakarnaa sida aan ku dhaafi lahayn iyaga oo aan u noqon lahayn dad experienced ah ururkeena SWJ Somali Women Journalists horta waa ururkii ugu horeeyay ee hadda kadib markii ay baaba'een ururadii Sawja iyo Woja iyo Wamdu waxyaabihii la dhihi jiray ay gabdhaha suxufiyiinta ku midaysnaayeen magaalada hadda ururkii ugu horeeyay ee ku soo biiray aad waxaan u soo dhaweynaynaa urur walba dadku waa kala ideology duwan yihiin ma la noqon karo isku fikrad urur walba oo jecel in uu shaqeysto haddana shaqadii saxaafadda uu ku shaqeysto horta aadan u soo dhaweynayna inaga kama soo horjeesanayno midda ururkeena ku soo hartay midda ururkeena waa sidiisii sida gabdhaha uu horumarin lahaa sida uu u noqon lahaa macnaha mid xasuus ku leh dadka waad garan kartaa marka labadiinuba waxaad u aragtaan in ururada la badiyo oo gabdhaha haweenka ururada u doodaya ay badnaadaan aniga ururada in ay bataan ma qabo waayo waxa marka ay bataan waxa la yiri Soomaalidu waxay tiraahdaa war la qaba xiisa male hore waxaan u arki jirnay ururo badan oo isbarbar yaacayo isgaada socdo haddana le halkaan iyo fishinkaygu waa sidaan oo mishinkaygu waa sidaan ha iska bateen laakiin ha ahaado waxa loo ordaayo waayo ma ku fikirteen inaad midoodaan in hal urur laga soo saaro ma ku fikirteen runtii inaga horta ururkeena marka aan kaaga hadlo fursad badan ba horta looma helin ururkan hadda ay nimca ka tahay gudoomiyaha oo xubno badan oo iyaguna gabdhaheena Soomaaliyeed aan ku faraxsanahay wariyaasha qayb ay kala yihiin inagu kumayna baraarugsaneen mar horena mayna tahay waayahay faanta Soomaal laakiin haddii ay jecleystaan inay nagu biiraan haddii ay jecleystaan inay nagu biiraan iyo haddii ururo kale ay yimaadaan oo ay jecleystaan inay nagu biiraan runtii albaabka ururkeenu waa u furan yahay hadda 75 u maraya rajadeena dhowna waxa ay rabtaa in kun gabdhood oo suxufiyiinahoo dalka iyo dibadda iyo gobolada iyo meel walba jooga isugu keeno runtii aad baan ugu faraxsanahay gabdhaha nagu nimca dhinacaaga ma ku fikirtay in ururkaas aad ka mid noqotid ama labada urur la mideeyo labada urur la mideeyo ma xumo laakiin qof walba yool ay tiigsanay yoolkan waxaa waa in aan gaarno horumar maanta gabadha suxufiyadda ah oo shaqeynaysa 10 sano ka hor meesha joogtay ilaa imika ay joogtaa gabadha aad ku ogeed in ay maanta aqrinayso kaliya warka saacadda ama waxyaabo si loo dhiibo loo soo diyaariyo meesha aad ku ogeed sanado badan ayay imikan ay joogtaa aad iyo aad bay u mahadsan yihiin nimca xasan cabdi iyo waliba ifraax cumar warsame oo igala qayb qaadanaya toddobaadkan barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska isla markaana aan ku falanqeynaynay laba urur haween oo ay ku midaysan yihiin gabdho suxufiyiin oo magaalada Muqdisho looga dhawaaqay iyo doorka ay ka qaadan karaan horumarinta dumarka wariyaasha Soomaaliyeed labadiinaba waqtiga qaaliga ah mar kale waan idinkaga mahad celinayaa ee aad inoo soo hurteen intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa daawadayaal barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska intaan barnaamijkan lamid ku kulmi doono nabadgelyo Aloshiyo, Mayra.